kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena leewaya filmis oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamay inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywood-ka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena leewaya filmis fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. maqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa aktar caan ka ahaa gudaha dalka Hindiya sidoo kale kamid ah dhalinyarada u soo bixisay aktarnimada ayaa waxa uu ku geeriyooday maanta magaalada Mumbai ee dalka India. Shusansin Rajpur oo kamid ah Jilaayaasha dhalinyarada Bollywood-ka u soo kaceen ayaa maanta lagu soo waramay in uu isdilay nafsadan isdaafiyay, waxaana meedkiisa laga helay gurigiisa xaafadda Bandira ku yaala ee magaalada Mumbai. ilaa iyo hadda lama oga sababta dalkiisa ka dambeysa, balse waxaa la ogaa inuu kaligiis ku noolaa guriga Bandira muddadii bandowga Hindiya ka jira ee laga cabsi qabay caabuqa COVID-19. arrintan ayaa Hindiya si weyn u saameysay daqiiqadihii la soo dhaafay. waxaa wax laga yaaba ah Jilaayaasha indhaha ay ku hayeen shacabka dunida ee shaashadaha laga daawan jiray inay nafsada isdhaafiyaan oo ay isdilaan. Sushan wuxuu ahaa jilaa qaab jilin fiican oo xidig caan ah la soo shaqeeyay. Bollywood-ka tacsi ayaa u taala maanta maadaama uu ka baxay wiil dhalinyaro ah misna shumac u ahaa Bollywood-ka iyo jiilka cusub. booliska ayaa baaritaan ku wada sababta dhimashadiisa ka dambeysa inuu isdilay, walow la sheegay inuu xanuunsanaa muddooyinkii ugu dambeeyay. sidoo kale arrintaasi dhimashadiisa ayaa waxaa tacsi ka daray superstarka Akshay Kumar ayaa qoraal rasmi ah oo soo saaray arrintaasi asaguna ka tacsiyeeyay gelida naxdinta leh ee ku timid aktarka. wuxuuna yiri, markaan daacad u hadlo faktii hore markaan maqlay geerida Sushan aad ayaan u naxay, hadalka ayaa iga soo bixi waayay. waxaan xasuustaa markii aan daawaday filimkiisa Jichore inay saaxiibtiisa Saajid u sheegay filimka sida uu u fiicnaa iyo bandhiga Sushan sida aan kaga helay hubal ahaan atoore xirfad badan ayaan weynay. waxaan u tacsiyeenayaa murugadan la qaybsanaya qoyskiisa. Sushan filmadiisa ugu dambeeyay oo wax ka jil waxaa kamid ah filimada Drive oo uu la waday tirshida Jacqueline Fernandez kaasoo laga daawaday Netflix-ka. sidoo kale waxaa kamid ah filmaantiisa Chichore Kedarnath, waana filmaan xidigan lagu soo xasuusan doono, waana shumac ka baxay Bollywood-ka. haddii aad warbixintan ka heshanay asxaabtaada la wadaag.